السلام عليكم. toban xog oo ku saabsan faa'iidada uu jimicsigu leeyahay jirka bini'aadamka. Haddaba maxay kala yihiin tobankan ugu muhiimsan? Haddii aan soo qaadano qodobka koowaad, haddii aad exercise samayso waqti kooban waad dhididaysaa. Dhididkaasina waxa uu profitin garaynayaa inuu kugu dhaco macaan. Qodobkeena labaad, markastoo jimicsatid waxaa hoos u dhacaya sonkortii iyo milixdii ku kaydsanay jirkaaga. qodobka saddexaad, markastoo aanad jimicsan ama wax exercise aanad samaynin waxaa kugu badanaya dhisiiska caloosha, taasina waxay keenaysaa calool barar. qodobkeena afaraad, haddii aanad 5 maalmood aanad samayn wax exercise waxaad halis ugu jirtaa kaadi macaan iyo dhiig karo. qodobkeena shanaad, haddii aad subax kasta samayso 15 daqiiqo oo ordo ama aad guclayso waxaad ka fiican tahay ama aad ka caafimaad fiican tahay qofkan iska hurda. qodobkeena lixaad, jimicsigu wuxuu hoos u dhigaa kansarka mindhicirada. qodobkeena toddobaad, wuxuu 20% kaa badbaadinayaa halista aad ugu jirto kansarka naasaha. qodobkeena sideedaad, 83% wuxuu kaa yaraynayaa caabuqa lafaha ku dhaca. qodobkeena sagaalaad, 30% wuxuu kaa yaraynayaa niyad-jabka iyo murugada. qodobkeena tobnaad, 35% wuxuu kaa yaraynayaa xanuunada asaasiga wuxuuna horumarinayaa kalsoonida naftaada. wassalaamu calaykum. janalkeenana sii share garee walaal si aad u kula wadaago walaalkaaga muslimka ah.